بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 262 عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر وخميسين، رواه النسائي وأبو داود والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 29 bishii 11 القعدة سنة 1444 isla markaana waafaqsan 18 bishii 6 sanadka 2023. waxaanu ku jiray kitaabkeena al-muntakhab min sahih sunan nabawiyya, ayaanu ku jiray qaybtii ku saabsanayd ashhurul hurum iyo macrifatuhunna iyo fadlu ayaam al-10 min dhil-hijja. waxaanu ku jiray fadlu ayaam al-10 min dhil-hijja, dhil-hijja tobankeeda u horeeya fadliga iyo qiimaha ay leeyihiin. ayaanu ilaa 2 xadiid ka soo qaadanay fadaaisheeda, xadiidka Jaabir iyo xadiidka Abdullah bin Abbas. sidoo kale waxaan soo dul maray Abdullah bin Umar xadiidkiisii iyo xadiidka Abu Hurayra iyaguna oo xadiidka Abdullah bin Abbas la macna ahaa fadaaisha ay 10 maalmood leeyihiin. saan ogsoonahay maanta bisha dhil-qicda saan ku wadna maanta waa 29 way. caawa waxaa suurtagal dhul-xijja inay kow noqotaa suurtagal oo berri Isniinta ay kow noqoto. qofka raba inuu 9 maalmood soomo berri Isniintu ka bilaabi ilaa 9 ayuu ku joojinayaa. waxaa kaloo suurtagal inay berri 30 buuxa noqoto dhul-qicda oo talaadadu marka ay dhul-xijja ay bilato. aduu isku soo ururiya ama Isniinta berri kow noqon ama talaadada. saadarteed baan dhammaan baraha bulshada dhammaan Soomaalida dunida dacaladeeda ku kala nool inay ihtimaam siiyaan bisha arag fiirinteeda, oo cid kasta oo bishii caawa maartay Ilaahay aragtay inay xogta nala wadaagaan baan aad iyo aad markaa u jeclaan lahaa. annaguna waan dadaalaynaa. inta markaan ka gudbo waxaan ka cudur daaranayaa waqtigan hadda aanu soo diraya xadiidka waa casarkii iyo duhurkii bay u dhaxaysaa. maanta axada waan mashquulay duruus iyo waxyaabo aan ku mashquulay waxyaabo kale oo dacwada ah. saadarteed hadda maan maartay chance u helay. weliba waxaan hadda aan u soo dirayo maadaama xadiidka uu ka hadlayo 9 maalmood soonkeeda iyo qiimaha ay leeyihiin iyo nabigu inuu sameyn jiray, inaan marka lacala inay berri soo noqotaba laga yaabo dadku say u ogaadaan min baabi tanbiih weyn. in badan dadku way og yihiin, laakiin bini aadamku uu qaflo badan yahay, halmaan badan yahay, inuu maaragtay aan la xusuusiyo had iyo jeer laga maarmaan way xusuusta tanbiih. xadiidkan markaan u soo noqono xadiidka Nasaa'i iyo Abu Daawud iyo Ahmed iyo qeyrkood way wari. xadiidkan waa mutakallamu fi waa xadiid laga hadlay culimadu isku qabsadeen, qaar ba daciifiyeen, qaar xadiidka way saxiixiyeen. marka Sheekh Ibn rahmatullahi alayhi sunan Nasaa'i Abu Daawud iyo sunan sahih targhib wa tarhib iyo qeyrkiiba ku saxiixinaya. marka xadiidku sida xoog badan waa xadiid saxiix way. inta haddaan xadiidka kaga gudubna macnihiisa aanu nimaadno. معنى حديث كم حوية هنيدة بن خالد نكلي هذا عن امرأة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هو ينكر الرسول كقار كمذا قار وحيله وحفصة قار ومارت سلمة ويان قار وينك ملو دايي. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان وحوها يصوم متصوم 9 سقال ومن ذي الحجة بشد الحجة حق هذا كهات سقال مال الموت وذي الحجة والنبي والسومي تشري. ويوم عاشوراء bisha muharram ee soo socota maalinkeeda 10aad oo Caashuraana waa soomi jiray. و3 ayaamin 3 maalmoodna waa soomi jiray. min kulli shahrin bil kasta 3 maalmood buu ka soomi jiray. ma yamul bil ba may awal 2 Isniinta ugu horeysa bisha wiiga ugu horeeya maalinkiisa Isniinta min ash-shahr awal 2 min ash-shahr bisha Isniinta ugu horeysa iyo waa khamiisayn 2 khamiis saddexdaas uu ka soomi jiray bil kasta. إخوة الإسلام والإيمان، حديث كان وحنو عطين هيا إن هوانك رسولك يدهن رسولك عليه الصلاة والسلام وحسومي تري 9 بري أو ذي الحجة 9 كذا مع الموت بسومي تري 9 مع الموت ذي الحجة كسومي تري 9 كمع الموت أو غير ذي الحجة أيو النبي بسومي تري ومالك الطمناد وعيد وي 9 كاس وسومي تري وحكلوا وسومي تري يوم عاشوراء ومحرم تصوص عطاء وحكلوا وسومي تري بالكسنا 3 مع الموت بكسومي تري 3 maalmood culimada qaar baa waxay dhawaayaan aamul bayt, laakiin xadiidkan uu ka diidaya
حديث كصدح مع الموضوع ونوشر حايا أول اثنين من الشهر بش اثنين توه الرئيسة يو خميسين لبدا خميس كحكت وحصار اللفظ إفراد الخميس يو خميس ما صار أيضا خميسين ليجينا ويصار تمركها إذن بش اثنين توه الرئيسة هذا اثنين توه الرئيسة أيام البيض من نقنيس وبش أي بلاد أيام البيض من نقنيس لبدا خميس ما أرتي إن خميس كحكان أيام البيض من نقنيس محيالي كاثنين وتضبوي وسيديد ويان توكل مركا اوجي وهكذا مركا waxaa la hubal isniin iyo khamiis inayna oo bisha qaybta ugu horeysa inayna ayaamul biid noqonin idan isniinta ugu horeysa bisha iyo labada khamiisada ku xiga dibcana wiiga ugu horeeya isniintiisa iyo khamiistiisa iyo wiiga ku xiga khamiistiisa way sidaas lafdiga kalena dhahaya idan halka waxa weeyaan saddex soon oo sunno ah ayuu nabigu sameyn jiray sagaalka bari ee dhulxijja ugu horeysa iyo maalinka tobnaad oo muharram ah in maalinka sagaalaad lagu darana way fiican tahay waqtigeedan ka hadli doonaa iyo saddex maalmood bil kasta ayaamul biidkii ma saddexda maalmood bisha xagee laga soomi isniinta ugu horeysa bisha markay bilatay isniinta wiiga ugu horeeya isniintiisa iyo khamiista wiiga ku jirta iyo khamiista wiiga kale sidaas uu soomi jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam idan halka waxaanu ka qaadanay xalu shaahidkeena aan u keenay halkan waxa weey ciwaankiisana waxaanu ka dhignay ma jaa fi sawmi 9 min dhil-hijja في صوم 9 من ذي الحجة ذي الحجة سقال كذا مع الماضي أهرية إن لا صوم وحي كسو أروري محل شاهد كانوا متاسوي ما دام الله جاي ببريني ذي الحجة كون نقطه أما بري دنبه قفك أود أهيا إنه صوم فضل بضم بيلاده حديثك وحا حوتشينا حديث كلام سوق قادني ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وصوم حديث عبد الله بن عباس إخوتي في الله حديث كان وحال لسكو قبطي وحال الحديث هو حديث صحيح لكن حديث وحو عارضه يا وكهر من هيا حديث في صحيح مسلم كسوغان أو لبر روايات وأمنا عائشة لقونا إلى ذا لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم ما أرتي 9 من ذي الحجة 9 من ذي الحجة النبي مسوم يلفظ كلام إلهي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما أرتي صائما من ذي الحجة 9 من ذي الحجة سوى ذي الحجة سقال كذا مع الموت صوما ما أنا أرقانو يا أيضا النبي ما بسومين بقطه إذن يا حديث كان سال سقوق جينا يا حديث كان بحلاه كان الرسول الله كان يصوم 9 من ذي الحجة sagaalka maalmood ee xijaa waa soomi jir isku soo ururi culimadu xadiita inay iswaafajiyaan waxyaabo fara badan ilaa 5 ilaa 6 tawjiih bay culimadu ka sameeyeen markaan isku soo ururino kaligoodna ma aha xadiid kale oo saas oo kale inay iska hor imanayaan tusinayaan qaababkii u jamciyaan bay kamid waxa la yiraahdaa nusuustu inay tacaarudayso iska hor imanayso ku tusinayso saddex usluub baa la isticmaalaa kow inay jamc la isku dayo macna ay isku iman karaan labo inay markaa nasakh inay kala dambeeyeen daliil waa in la helo inay kala dambeeyeen saddex tarjiix idan culimadu markii la isku soo ururiyay waxay dhaheen waxa lagu jamciyay ummuna Aisha waxay aragtay bay ka warantay inayna arag nabiga oo sooman saxaabada kalena waxay arkeen bay ka warameen idan waxa la yiraahdaa man xafida ala hujjatin man xafida daliilan way أما من حفظ حجة فهو على من لم على من لم يحفظ بالنقنية يعني قفك حجة حفظية أما من قفك حفظية حجة يكون نقنية قفك عن حفظين إذا أمنا عائشة وحي أرقتي أي كورنتي إنينا أرق وحي لمتها صلاة الضحى ما أنا أرق بيت النبي قولي تكن هي لكن أنا وأن تكن هي بيت صلاة الضحى وحنا صار أنت سو قول أو حديث النبي وله صلاة الضحى يا سو تكن هي أمهاني أي ورينس إذا ما كان لها أمنا عائشة ما ينأرك لكن هوينك كلا أرك إنه النبي سومي تري مركا وحاك لو دحي كرتا النبي إنه أوجد تجي تري أحيانا أما عذر دار سفر أما عذر كلا أما وحي إنه أوجد تجي أنت كسي درن أو حوتين هيالي إن الصون كذا وفضل بدنيه
حديث كان شلق قادنا عبد الله بن عباس والنبي يقول له ما رتي أيام ما تشيران عمل صالح لو جتش عليه إلهي ما المها طبعا كذي الحجاب إذا عمل صالح مركي لي صلاة بسوقلي صومك بسوقلي صدقة بسوقلي أي عمل صالح ودم بسوقلي هي إذا حديث كان هذا لقاضي النكاء ابن عباس بابا كف لمبا هي العمل الصالح والنبي يقول فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أيام ما أعرف العشر من ذي الحجة إذا حديث البخاري يغيرك ورين هيان هي حديث ما أعرف أنا هذا قال هنيدا حديث كاسب حوتين هيابا صادرت ورك مركي لسكوسا أوروريو سجال كان مع الموت ذي الحجة قفك كري إنه صوما آد أفضل بدن عمل كصالح يوزجليسه مركا نفتي نبغى نقدر دار ما هي سجال كان مع الموت إن نكفى إذا سنه أفضل أيام الدنيا على الإطلاق أي النبي عليه الصلاة والسلام أيامها الدون كمالمها أفضل بدن وي إذا مركا إن قفك مسلم كأذكارته يا قرآن أخرس يا طاعة يا صلاة يا مارتي صون كإنه بديو سجال كان مع الموت بأفضل بدن سؤال أنا إن بدنا كسو هذا اللي بان هذا هل كان كسو علنا يا وحد يكر تقف كإنه يصير هذا صون قضاء دي الأولى هي أيام العشر من 9 من الحجة مسومي كرا حنولين هي ومسألة خلافية لكن قول كان رجح إنه سيدا راجح نعم وسومي كرا قف أسوأ قضاء الأولى واحد بقى أنا ماله تنقول أنا ما هي 6 من شوال بالله هذا قضاء الأولى هي وتسومي كرتا أيام العشر من الحجة يوم عرفة عاشوراء 6 من شوال وسومي كرتا خميس 2 وسومي كرتا لماذا؟ وحي علماء الدهان ومسألة أصول الفقه اللغة لقى ليس وحي علماء ليهين عبادة مضيقة وقت قادوا عريري قوية هي مدة موسعة هذا يسقبتها مركا مدة مضيقة اللهور مرينها 9 من الحجة وعريري وهذه كاتك تعويد ميلس لكن قضاها الأولى هي ذو الحجة نفتر كذا قيبها دمت كقضاين كرتا محرمات قادة سنة كردن بكوبنا إلى رمضان كي كلا لقى قادو كانس بدن بض هيستا لكن سيال بريود الحجة كانس كذا وعريري سيدو كلا شوال بش شوال لحما الموضوع كميد إنها سنتبه لقى ربا هذا قضيه هي صونك السنة ذا يسو كيني ويدو عويان صونك هذا شوال صون كدمنا قضاها هذه وقتها دونتي صون مركا دومرك وكلا أبضا وهذه شير بيرد أما ديق أما دور شهرية أما عادة كل على صون كان لما يسترنن أيوة صون قضاء الأولى هي 9 الحجاج كنت ماده 6 من شوال كنت ماده لب ماله واحد بعطاه ماله العلماء بدن بانا ساقبته إن ماركا اللي سومي كرو صونك سنة أضو قضاء الأولى هي أنت أنا وبراروجين أي إجتها إلهي سبحانه وتعالى وحودي سننا بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه حقا نتصنون إرزاق حقا راعيتان كيسا نفتي نبو حنودر دار ما هي maalmaha nagu soo foodayo bari ka bilaami ama talaadada ka bilaamaysa waa maalmo aad u fadli badan afdalu ayaami dunya ala al-idlaq weeyaan aanu ka faa'iideysano rag iyo dumarba dunuubti baa naga badatay istighfaarta iyo adkaarta iyo quraan akhris iyo salaatul leyl iyo cibaada iyo soon waa ayaamo yar macduudaad weeyaan macluumaad ayaamo macduudaada weey 9 maalmood intii marka aad kari kartiin waad ka soomi kartaa laakiin marnaba maarta carafa yana ku gafin maalmaha kale haday ku gafaan maalinka carafa yana ku gafin wax kale hadaad qaban weydi maalinka carafa soonkeedii uu ku gafin laakiin ninka xaajiga inuu soomo looma ogolo isa ku celin haya الحديث 262 عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر أول 2 من الشهر وخميسين رواه النسائي وأبو داود والحديث صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم